السلام عليكم وعليكم الصوماليين. laisku raacay 82 9 sano kadib sharciyadii badda dhan kasta dalka Soomaaliya waxay bilaabeen inay saxiixaan baarlamaanka la geeyo koodishi maxaa la yiraahdaa koodkii yaan af Soomaali loo rogay waagaas waxaa jirtay in aan waxaan af Soomaali ku qornayn baarlamaanka la keeni karin marka heshiiskii dhammaa oo ilaa 300 artikolo ah af Soomaali loo rogay waxaan rabaa inaan meesha uga faa'iideysto niman judicial oo yaqaanay waxaan soo qaadanay afka Carabiga oo ugu sahlanay dadka niman judicial hadda oo kamid ahay Yusuf Xaji Nuurki hadda Turkiga ku dhintay oo Puntland maxkamadda sare madaxda ka ahaa oo nin saaxiibka ah oo ugu tacsiinay meeshan yaa guddi uu ku jiray iyo tarjumay af Soomaali baarlamaanka la geeyay sidii loogu aqbalay macal badii la yiri waa 12 iyo tii la yiri waa badii kale oo EZ ka hay 200 kii dhulka hoostiisa marayay badda hoostiisa marayay dhulkii oo 200 ahay waxa alla wixii meesha ku yaalo dhan waa la ogolaaday madaxweynuhu waa saxiixay 89 la maraa waqti looma helin marka sharcigu wuxuu leeyahay heshiisku wuxuu leeyahay dawladda la arkaa waa inay xadadaa oo kartooyin iyo mapayaal iyo coordinate geographic wax la yiraahdo ay meesha ay ku ag tahay qaybahan badda loo qaybiyo oo sheegno magacyada aan ku sheegnay kaarta la akhrin karo weyn waa inay soo saarto oo unada geyso ilaa hadda wala isqabsanahay marka halkaas oo mara iyo kan malihid iyo halkan waa balki adigu ma lahayn iyo kana dhacaysa waa la socoteen la diin sheegi maayo waa laga gaari waayay dawladdu waagaas jirta inay samayso dhamayso wixii laga rabay oo ku jirto xataa in soodin la sameeyo waa laga gaari waayay hadda la sameeyay 2014 markii arrimahan ay bilowdeen dawladda Soomaalida hadda way taqaanaa meesha badeeda yarta oo ay ku ag tahay 12 kilomitir badeeda dhaqaalaha dhulkeeda hoose badda hoosteeda mar hadda waa la yaqaanaa oo kartooyinka waa la sameeyay maapayaalka waa la sameeyay waana la geeyay unada secretariatka unada way haystaan laakiin waagii waa laga gaari waayo waa garanaysaan waxa dhacay intaas waxa soo xigta marka waqtiga waa soo dhawaaday dacwadana bilaabanaysa oo markale ka hadlayno waqtiga Soomaaliya ku dhacaya la yiri in horta waxa jira wax la yiraahdo dhulkii badda hoostiisa marayo oo bixinay continental shelf-ka iyo convention-ku wuxuu qorayaa dawladdii isleh waa ka badan tahay oo 200 dhulkan waa sii soconaa caddayn ha keensato scientifica daatooyin geophysica geologica hydrographiya kul wax kasta leh oo guddi unadu leedahay oo la yiraahdo commission of outer limits of the continental shelf meesha ugu shishaysa oo markaas aan dhul arkayn oo ay mool tahay oo ninkii dawladdii qabta ha keensato ilaa loo gaarsiiyo ma 300 ama 350 mayl markaas hadda waa nautical mile hadda waa 200 laakiin dawladahan sida Soomaaliya camal ay kuwa waxa jira qaba continental shelf ballaaran waqtiyaana ku dhacay maybe ahead 2009 iyo wax saasa 8 waka waagaas unada joogtay ninkii Mauritania ka ahaa dalka xukumay dadaal badan oo sameeyay Norway u tagay wuxuu weydiistay kaalmo waa loo sameeyay
marka waxaa jira adduunyada wax ka dhexeeyo horta cawad oo dhan waxaa maqlaayay in lama sharaysan karo lama yaabi karo in sohdin la isku dacweeyey dhul ha noqoto ama bad ha noqoto meel kastay ka dhacdaa qolyahan aan la joogno iyo faransiisku baday isku dacweeyeen faransiiska iyo norway waa isku dacweeyeen malta iyo tunisia waa isku dacweeyeen libya iyo tunisia waa isku dacweeyeen meel aysan dacwo ka socon male maxkamadaana kala qaadi kulli marka lala yaabi maayo maya kuwa dhulkooda isku dhegan yahaa jira kuwa hadda soo sheegay maahane kuwa kaloo afrikaana jira oo dhulkooda isku dhegan yahay sida nigeria iyo togo cameroon iyo dalalka waa badan yihiin warqadda waxaa ku qoran mahana soomaaliya kale inay ka dhacday meelo badanay ka dhacday labadii dowladood oo qabta inay ballaarsato continental shelfka waxba kama qabana non objection waa qaadan karta adigu wax rabtaa sheeg karta ha yeeshaan waxbana kama qabno waa keliya ha waxaanu ku dhigan 6 baragraf 6da baragraf haddaa akhriso intaan ku wadaa waxaa ku qoran si cad arrintan geysashada ama dalabka in la dheereeyo continental shelfka waxba ka dhibi mayso xuduudaha aan isku hayno arrinta xuduuddu go-aankeeda iyo kanu isma leh aa ku qoran 6da baragraf hadda aragto waagaas marka maxaa dhacay waagaas dowladda tacbaan iska ahayd hadda saaxiibka manager farxog sheegay aad u sheegay waxa dadweynaha dowladdii qaaday dowladdu ma oqoon waagaas jirtay waxa jira iyo waxa conventionku sheegayo iyo lama socdo ee waxa la waana la boobay waliba waa laga sii daray boob kaliya mahna waa la gata xataa la yiri taas inay run tahay waxba iskaga jirin maxkamaddii intiinay dhegaysatay ama go-aankii aragtay yaa garan karta oo halkan aan ku wado maxkamaddii waxay jid siisay kenyaanka waxay damceen inay ka dhigaan MU-gan wax adigu valida oo sohdin iyo ka hadlayo maxkamaddii waa diiday halkan ku taalaa waa 45 bog oo go-aankii ah arrimahan waxba iskagama jiraan adigoo non objecting geyso adigoo waa geysan kartaa adiguna geyso waa macnaha waxba kama qabo waa macnaha marka halka muhiim waa waxay dhikaadi waxaan rabaa inaan haddaan khaldanaysa waxaan leedahay wixii dowladdii TFG-du ay saxiixday iyo waxa xaqiiqada dhabta ay tahay waa laba shay oo kala duwan wey ma garan aniga leeyihiin qabaa oo xataa maxkamadii aad ogolaataan ku leeyahay horta lama garana u maleynayo waa ku fahmay saasaan kuu fahmay laftigeygu just inaan caddeeyaan rabay walaalle dowladda xasan dowladda sheekh shariif baa joogta soo maahayn waxaan u malaynayaa dowladdu waxay timi February May waqti ka mid oo dhacayay in dowladdii rabta inay soo sheegato oo loo siyaadiyo baddeeda inay soo gudbiso May buu dhacayay maadaama May uu dhacayay sharcigu wuxuu oranayaa waddan kasta oo waddan deris la ah oo biyo ka dhaxayaan hadduu soo gudbisanayo in baddiisa loo siyaadiyo waa inuu waddan kale ka soo qaadaa xaashi simbala oo oranaysa in waddankan biyihiisa loo siyaadiyo waxba kama qabno automatically taa intayan dhicin Kenya waxay u gudbisay UN rejection oo ay leedahay xariiqda Soomaaliya ay gudbinayso iyo maabka ayna tustay anaga raalli kama nihin ee sidaan raalli ka nahay therefore that is where objection meeshu ka yimaashaas haddii waddankii deriskaaga ahaa uusan kuu ogolaanin oo Norway waxay nala samaysay intaasuu ahaa wuxuu ahaa war sharcigaanaa jira idinkiiyo Kenya no objection ma samaysan kartaan maya okay fine maadaama UNT ay heshay Soomaaliya applicationkeedii laakiin ayan Soomaaliya haysan warqadii waxba kama qabno in loo fidiyo dhulkeeda oo Kenya waa in Kenya dhageysto UNT Kenya dhageysto sidaa darteed ayaa Kenya waxay damacday in markaa ay dowladdii markaa joogtay ku qanciso aan wada hadalno waxaanu ha maqnaadeen applicationkiinu waa idiin maqan yahay laakiin aan wada hadalno
that is where MOU-gan uu ka yimid MOU-ganna waxa ku qoran waa siduu ninkan u sheegay odaga ah absolutely maxkamadda waa diiday inuu shaqo ku leeyahay demarcationka in la calaamadayo badda shaqo kuma laha wuxuu ahaa isfahan oranaya ma wada hadalnaa ma ka wada hadalnaa continental shelfkiina ma aha ma wada hadli karnaa buu ahaa wadahadkiina iyagaa diiday markay diideen wasiirka arrimaha dibadda uu 3 jeer email u diray maxkamadda la keenay emailkii oo uu yiri maanta idinku damaysa gaarisaan idinku imid waan wada hadalnay waxaan isku heshiin inay heshiin weyno wafdi baan idin soo dirnay waan wada hadalnay xamar baan imaanna tidaahdeen markii saddexaad buu email u diray dhammaan maxkamadda keentay emailadaas way ka soo jawaab waayeen dowladda Soomaaliya degniin bay bixisay ay leedahay haddii aad wada hadalkan doonaysaan inaan wada hadalno sii wadno wali diyaar baan nahay haddii kalena waxaan gudbinaynaa dacwada maxkamadda gudbinaynaa and that's what they done هذا ما سنت Oh my life, the mountain, oh my life. Sana degi, kalakai, oh my life.